waxaa badankan laga yaabaa inaan maqalno oo aan aqoon dusha saraa u leenahay magaalada Istanbul ee cariga Turkiga laakiin badankeen mooga waxay u taagan tahay marka la joogo qaaradda Yurub iyo midda Aasiyaba muuqaalkan waxaan idinku soo bandhigi doonaa xogo badan oo ku saabsan magaalada Istanbul ee cariga Turkiga oo laga yaabo inaad hadda ku nooshahay amaba aad magac taqaano si kale haddii aan u dhahana laga yaabo inaad maalin uun rajeynayso inaad tagto halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa taariikhda magaalada Istanbul halka uu ka yimid magacan nolosheeda waa sidee ay dadka diilnaawayaasha u bedeleen magaalada iyo xaqiiqooyin badan oo ka qarsoon oo la xiriira magaalada taariikhiga ah ee Istanbul si aad wax badan oo ka qarsoon u ogaato inaguna aan u soo badino taariikhaha iyo xogaha qarsoon ee magaalooyinka caalamka laagsar muuqaalkan si saaxiibo badan uu gaaro una shirgariya asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale wad ku mahadsantahay daawade taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga halkani waa Istanbul sidoo kale waxaa loo yaqaanaa magacyada kala Qusdandiin Byzantine Istanbul iyo Astana waa magaalada ugu weyn Turkiga sidoo kalena ah magaalada toddobaad ee ugu weyn adduunka marka loo fiiriyo dadka ku nool kuwaasi oo tir ahaan kor u dhaafaya 15 milyan oo qof Istanbul waa xarunta dhaqanka ganacsiga iyo aqoonta waddanka Turkiga waxayna ka kooban tahay 39 degmo waxay magaaladan ku fidsan tahay marinka Bosphorus oo dhinaca koonfureed ka xiga badda Madow iyo badda Marmara waxaadna halkaasi ka fahmi kartaa in magaaladan ay tahay jasiirad eke oo ay bada ku wareegsan yihiin Istanbul waa magaalada kaliya ee kulmisa laba qaaradood iyadoona ku kala taala qaaradaha Aasiya iyo Yurub waxaa dhanka Aasiya ay kaga taala Antalya halka dhanka Yurubna ay kaga taalo Bosphor dadka magaalada degan 75% waxay degan yihiin magaalada Antalya maadaama 90% ka badan badka magaalada ay Aasiya ka tirsan tahay magaalada Istanbul waa mid taariikhi ah waxayna caasimad u noqotay boqortooyooyin badan kuwaasi oo midba magac gaar ah ula baxay sida boqortooyadii Roomaanka boqortooyadii Byzantiyiinta imbraadoriyadii Laatiinka iyo khilaafadii Cusmaaniyiinta halkaasi waxaad ka fahmi kartaa ahmiyadda baaxadda leh oo ay magaaladan u lahayd ee sida dawlad walba u qiimeyn jirtay sababtaas awgeed ayaana sanadii 2010 loogu doortay inay noqoto magaalada caasimadda ay aqoonta Yurub wadaagaan magaalada Istanbul dadkii ugu horreeyay ee degay misana aasaasay waxay ahaayeen Greega kuwaasi oo magaaladan u bixiyay magaca Bisanta waqtigaas taariikhda marka dib loogu laabto waa 660 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam taasoona ka dhigaysa in magaaladan ay dhisan tahay muddo 26 qarni ah kadib Greegii aasaasay magaaladan waxaa la wareegay boqortooyadii Roomaanka kuwaasi oo magacyo badan u kala bixiyay balse magacii ugu xooganaa uguna caansanaa wuxuu ahaa magaca Qusdandiin oo la oran jiray boqorkii dhisay magaaladan isaga ayaana loogu magac daray khilaafadii Cusmaaniyiinta markii ay magaalada Istanbul la wareegeen qarnigii 15aad ee miilaadiga waxay u bixiyeen magaca Istanbul oo micnaheedu yahay magaaladii Islaamka balse markii khilaafadii Cusmaaniyiinta ay dhacday Turkigana uu noqday Jamhuuriyadda Turkiga ayaa sanadii 1930 loo bixiyay magacii hadda caanka ku tahay Istanbul ka hor inta aan loo bixinin magaca Istanbul reer Yurub magaaladan waxay u yaqaaneen magaca Qusdandiin iyagoo diidanaa ku dhawaaqista magaca ah magaaladii Islaamka ee Istanbul sida awgeed dawladii Cilmaaniga ee Mustafa Kemal Atatürk ayaa magaaladan magacii ka bedeshay una bixisay Istanbul si ay u noqoto magac dhexdhexaad ah marka dib loogu laabto taariikhda magaalada Istanbul iyo sida ay muslimiintu ku qabsadeen nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee muslimiintu wuxuu ugu bishaareeyay inay furan doonaan magaalada Qusdandiin isagoona ammaanay hogaamiyaha iyo cidda furan doonta magaaladaasi sida awgeed muslimiinta ayaa muddo dheer ku taamayay sidii magaaladaasi u furan lahaayeen oo ay muslimiintu uga talin lahaayeen muddo 8 qarni ay wadeen hawshaasi muslimiinta iyadoona hogaamiye walba uu isku dayay jiray furashada magaaladaasi iyo in gacanta islaamka ay soo gasho laakiin midkii furtay ee nasiibku u yeeshay wuxuu ahaa Maxamed Al-Thani kaasoo kadib markii uu magaaladan furto helay magaca Sultan Al-Fatih ama Maxamed Al-Fatih oo ku caanbaxay furashada magaalada ayaana waxay ku beegneed sanadkii 857 taariikhda hijriga waxaynu markaan eegi doonaa macluumaad ay gaar la tahay magaalada Istanbul macluumaadka ay gaarka la tahay waxaa koow ka ah magaalada waxaa ku yaala marinka Bosphor oo xiriiriya biyaha badaha badda Madow iyo badda Marmara magaalada waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah goobaha ugu quruxda badan caalamka iyadoo sanad walbana martigelisa malaayiin dalxiisayaal ah kuwaasi oo doonaya inay daawadaan magaalada taariikhiga ah Istanbul waa magaalada kaliya oo ay caasimado ka dhigteen dhammaan boqortooyooyinkii soo xukumayay sida Roomaanka Byzantiyiinta Laatiinka iyo Cusmaaniyiinta magaaladan waxaa ku yaala mid ka mid ah masaajidda taariikhi ahaan ugu weyn adduunka waana masjidka Hagia Sophia kaasi oo markii hore ahaa kaniisad
balse suldaan alfaatix uu u bedelay masjid. mar kale ayaana masjidka aya sofiya waxaa laga dhigay madxaf sanadii 1934 xilligaasi oo dowladdii cilmaaniyada ahayd ay ka wareejisay masjidnimadiisa. balse sanadkii 2020 68 sano kadib maamulka Erdogan ayaa dib ugu soo celiyay heybadiisii iyagoona masjid mar kale ka dhigay. magaalada waxay ku taallaa waqooyi galbeed ee gobolka Marmara iyadoona ku fadhisan masaafo ahaan 183,092 kiiloomitir oo laba jibaaran. waana badka guud ee magaalada. Istanbul waxaa ku hareeraysan gaar ahaan dhulka fidsan ee magaalada geedo kaymo ah iyadoo qaybaha kale ee soo harayna ay yihiin dhismooyin hore oo qadiimi ah kana soo haray xadaaradii boqortooyooyinkii hore taasoona dalxiisayaasha caalamka ay ku soo jiidato magaalada. cimilada magaalada waa mid dhexdhexaad ah waxaana saameyn ku leh maadaama ay tahay magaalo isku xirta laba qaaradood. xilliga jiilaalka waa xilliga ay ugu kulashahay magaalada iyadoona heerkulka magaalada uu gaaray 40 darajo marka ugu sarreysa halka marka ugu hooseysana uu gaaro 10 darajo. xilliga xagaaga waa xilliga magaalada ay cimilo ahaan aadka u liidato iyadoona uu baraf badan ka da'o. heerkulkeedana waxa uu gaaraa markay ugu badan tahay 18 darajo halka markay ugu hooseysana uu gaaro -7 darajo oo eberka hooseysa. magaalada Istanbul waxaa ku nool dad diimo kala duwan aaminsan balse waxa ugu badan diinta Islaamka oo si weyn looga aaminsan yahay halka dad aaminsan Masiixiyada iyo Yahuudiyadaba ay ku nool yihiin. sidoo kale luqadda Turkiga ayaa ah luqadda rasmiga ah ee magaaladan looga hadlo. Istanbul marar badan waxaa ku dhuftay dhulgariir baaxad leh kuwaasi oo naf iyo maalba galaaftay. kii ugu weynaa wuxuu dhacay xilligii Cusmaaniyiinta. dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaanba magaaladu waxay hormud u tahay magaalooyinka caalamka iyadoona ah xarunta ganacsiga Yurub. waxaana Istanbul aad ugu badan dadka maalgashiga ku samaysta oo isugu jira muwaadiniin Turki ah iyo kuwa ajaanib ah. Greega waxay wali aaminsan yihiin in Istanbul ay tahay magaalo dalkooda ka tirsan kadib markii xoog ay kula wareegeen Cusmaaniyiintii. waana mid ka mid ah sababaha khilaafka iyo cadaawadda ka dhex abuurtay Turkiga iyo Greega oo daris ah muddo qarniyo ahna dagaalkooda jiray. dagaalkii ugu dambeeyay ee magaaladan ka dhacay wuxuu ahaa dagaalkii koowaad ee adduunka kaasi oo ay ka qayb gashay dowladdii Cusmaaniyiinta iyagoo la safnaa dowladdii dhexe ee Jarmalka, Austria iyo Talyaaniga. balse gaashaanbuurtii ka soo horjeeday England, Faransa, Ruushka iyo Mareykanka ayaa la wareegay magaalada mana aysan ka bixin muddo sannado ah. balse heshiis ay wada galeen iyaga iyo Mustafa Kemal ayay uga baxeen magaalada sidaasna loogu soo celiyay gacanta Turkiga. Mustafa Kemal markii uu la wareegay xukunka Turkiga ayuu riday khilaafadii Cusmaaniyiinta isagoo aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga. waxaana xigtay in Istanbul uu ka xayuubiyo jagadii ay haysato oo ahayd inay ahayd caasimadda Islaamka iyo Turkida wuxuuna ku wareejiyay caasimad ahaanta magaalada Ankara. maantadan la jooga Istanbul waxay martigelisaa Soomaali badan oo siyaabo kala duwan halkaasi u tagay. sidoo kalena ganacsiga Soomaalida ee Dubai intii sii badan waxaa loo raray Istanbul oo magaalo ganacsi ah maanta. haddaba daawade ilaa ay dhammaadka haddii aad nala joogto islamarkaana aad ogaato xogo badan oo kaa qarsoon oo ku aadan magaalada Istanbul islamar ahaantaana aad rajaynayso inaan taariikhaha magaalooyinka caalamka sidaan uga soo waranno like saar muuqaalkan una sheer garay asxaabtaada aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee commentiga. aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.